kala duwan oo dalxiiska dalkeena kamid ah inaynu halkan ku daafurno oo iyaguna bilaha soo socda hadii la yiraahdo aynu si rasmi u daafuri doono oo swimming poolski kamid yihiin oo saddex qaybooda oo kamid yihiin gymki oo kamid yihiin garoono lagu ciyaari doono kubadda cagta kubadda tenniska iyo kubadda basketballka iyo runtii adeegyo dheeraad playgroundka ay caruurtu ku ciyaarayeen baa iyaduna mashruucani kamid ah runtii mashruucani muddo 4 sanadood sanadkii 2013 ayuu si rasmi ah uga daafurmay halkan aynu maanta joogno duleedka magaalada Hargeysa wax yar u jirta magaalada meesha la yiraahdo Abaarso waa 12 kiiloomitir marka aad ka soo kici tunto magaalada Hargeysa oo bilaa sixmada oo aad soo doonatay ama bas aad u timid goobtani si aad u heesasho nasasho wanaagsan iyo hotel 5 star kale laga yaabaa in hoteelo badan oo la dhararsanaya oo dhigiisa ay ka jiraan magaalada Hargeysa laakiin kani waxa uu dheeraan doona oo u gaar noqon doona inuu koobsan doono dhammaanba adeegyada dheeriga ah laga helo hoteelada caalamka wadogtii inoo dalkeenu ma laha 26 sanadood ee Soomaaliland jirto in goob kaliya la iskugu yimaado qaab noocan iyo kala hotel meel dhaafsiisan dhinaca kale halkaasi waxa ka hadlay mas'uuliyiin ka kala socota asxaabta siyaasadda aqoon-yahano waxgarad kale oo soo dhaweeyay hotelka cusub ee Royal Balance Hotel anigu aad baan u hambalyeynaya hotelkan iyo maalgashigan qofka runtii muwaadinka uu sameeyay way waxaan oran karnaa wax weyn bay soo kordhinaysaa magaalada Hargeysa iyo Soomaaliland guud ahaan maalgashinta la geliyo hotelkan quruxda badan leh waxa la yiraahdaa runtii space kan aad u balaaran hore u sameeynin waxaan oran karaa runtii waa arrin aad iyo aad u weyn waynu hambalyeynayna mulkiilaha Cabdi Daahir runtii waa barxad aad u qurux badan waxa aan filayaa mulkiilaha hotelkan dhisay Ilaahay ka abaal mariyo wuxuu sameeyay maalgelin aad u balaaran oo wadda ku baahnaa waddankeenu sadaqtihiin baa uu kobcbu ku jiraa oo dhaqaale ahaan bil ku cayna waxaan u baahanahay hoteelo waaweyn oo ka soo baxsan magaalada oo dadka ajnabiga noo iman karaan oo lagu raaxaysan karo oo lagu nasan karo marka waxa leeyahay mulkiilaha hotelkani wuxuu sameeyay maalgashi loo baahnaa iyo xilliga loo baahnaa daafurka ama iba furka hotelkan weyn ee Royal Place Hotel oo runtii hotel aad iyo aad u qurux badan oo aad u weyn waxa la oran karaa wuxuu noqon karaa hotelkani muraayad markaynu adduunka iyo layna qiimeynayo waxyaabaha laynagu qiimeeyo waxa sidoo kale aan u mahad celinayaa oo aan leeyahay dalkaaga iyo dadkaagana ku soo dhawow mulkiilaha Cabdi Daahir xafladan wanaagsan ee lagu daafurayo hotelkan casriga ah Royal Plaza Hotel sida fiican loo maalgeliyay anaga oo ku mahadinayna mulkiilaha sida fiican oo maalgeliyay Royal Paris Hotel markii dhaweeyde aan dusha ku soo tukanay halkaas sare ka eego waxaan idhi hotel ma waa magaalo dhan oo fadhida Ilaahay oo barakeeyo qofka maalgashiga inta leeg sameeyay oo wali baan oran karo waa risk buu qaatay waa markuu qofku khamaar qaato oo yiraahdo maalka inta leeg iyo hantida inta leeg balmeesha gali marka dadkuna wuxuu isku dhaafo khatar qaadashada inuu qofku khatarta qaato marka aad baan ugu mahadnaqayaa mulkiilaha Cabdi Daahir oo maalgashigan sameeyay Royal Balance Hotel oo noqonaya hotelkii ugu weynaa laga hirgeliyay magaalada Hargeysa kaas oo koobsan doona adeegyada laga helo hoteelada caalamiga loo yaqaan 5 star Xamse Xirsaxayd Saab TV Hargeysa